Allah u naxariistay walaashan Hodan Naaleeye waxay ku dhalatay magaalada Laascaanood ee gobolka Sool sanadkii 1976 iyadoo waxbarashadeedii hoose ku soo qaadatay halkaasi kadibna iyadoo da'yar ay u safartay wadanka Canada markii dagaalada sokeeye ay dalka ka bilowdeen. waxay waxbarashada dugsiga sare kaga baxday macadka West Hamber halka heerka koobaad ee jaamacadda ay ka soo qalan jabisay jaamacadda Windsor iyadoo sidoo kale shahaado dheeri ah ka qaadatay kulliyadda saxaafadda. markii ay jaamacadda ka qalin jabisay ayay bilowday barnaamijka isdhexgalka integration oo ah barnaamij muuqaalaad ka bixin jiray TV-ga kaasoo ka hadlaya isdhexgalka. barnaamijkaas waxay markii dambe ka baahin jirtay YouTube-ka si ay u sheegto sheekooyin wanaagsan ee Soomaalida uguna dhiirigeliso kuwa qurbo joogta ah ee la halgamaya noloshooda. maadaama ay ahayd gabar wariye ah oo aadna ugu wanaagsan xirfadda saxaafadda ayay go'aansatay in codkeeda ku taageerto dadka iyo dalka Soomaaliya oo ka soo kabanaya colaado iyo dagaalo sokeeye. waxayna sameysay barnaamijyo wax ku ool ah oo ka hadlaya horumarka ballaaran ee ka jira dalka iyadoo booqatay goobo badan oo dalxiiska ku wacan kuwaasoo ay kula kulantay dad badan oo Soomaaliyeed oo xitaa qaarkood dalka dibadiisa ka yimid si ay dalka u maalgashtaan. goobaha inta badan ay booqanaysay waxaa ka mid ah gobolka Sool gaar ahaan magaalada Laascaano oo ah meesha ay ka soo jeedo halkaasi oo ka soo diyaarisay barnaamijyo badan oo wax ku ool ah. ujeedkeeda ugu weyn waxa uu ahaa in fikradaha aan wanaagsanayn ee wadamada reer galbeedka ay Soomaaliya ka aaminsan yihiin beesha ka saarto oo ay muujiso wanaaga Soomaaliya oo markasta dadka waxa ay u sheegi jirtay in Soomaaliya ay mustaqbal ifayo leedahay. markii ugu horeysay ay ka soo safartay Canada waxay ahayd sanadkii 2011 markaasoo ay timid xeryaha qaxootiga ee Kenya ee Dadaab halkaasoo ay deganaayeen 100,000 oo qaxooti Soomaaliyeed. waxayna halkaasi kula kulantay dad badan oo Soomaali iyo ajaanib iskugu jira kuwaasoo ay kala hadashay xaaladda wadanka Soomaaliya waxaana markaasi la socotay Allah u naxariistay Saado Cali Warsame. I need to know exactly what you want. I know, and you have the power to help Somalis. Our dignity as human beings is being ruined 20 years in this camp. And this is Saba Ali Warsame, who is from Somalia. I'm well known in back home. I'm American citizen. So we want to know what's the plan after 20 years. Our people is suffering in here. Please, you are the High Commissioner. Hold on, take a picture. To increase the number of resettlement. There are some lady who told me about difficulties in resettlement. Yes, my son's grandmother is in here. So what I would like to ask you please is if you can put in writing those all right. difficulties for me to contact the American Bureau of Population, Refugees and Migration to see if they can change the writing. We need the AOR to open again. There's 30,000 American Somalis that want to sponsor their families that are suffering. Allah u naxariistay waxay hodan ahayd gabar wanaagsan akhlaaq leh qalbi furan dadkana jecel markastana dhoola cadaysa waxaana markasta oo ay meel booqato ku soo xumi jiray dhalinyarada oo aad u jeclaa hayaankeedii kuwaasoo ay dhiirigelin jirtay inay is-horumariyaan. sidoo kale waxay in badan tusaale u ahayd gabdho badan oo Soomaaliyeed oo daawan jiray barnaamijyadeeda aadna ugu heli jiray siiba kuwa ku jira mihnada warbaahinta si gaar ahna waxa loo xasuustaa halku dhigeedii dhiirigelinta ahaa ee naag iska dhig. warbaahinta bulshada ayaa badashay korna u qaaday barashada dadka arrimaha dhaqanka ay tiri Hodan. walaashan Hodan intii ay ku guda jirtay halgankeedii waxay caalamka ka gaday wadankeena iyadoo muuqaalo iyo sawiro fiican ka sameysay dalka taasoo keentay in qurbo joog badan ay ku dhiiradaan imaanshaha wadankeena. waxaan doonayaa inaan u soo tabiyo dadku sheekooyinka ku saabsan Afrika hadafkayguna waa inaan dadka hogaa tusaaleeyaa oo aan bedelaa ay tiri waxay hadalkan u sheegtay BBC Africa horaantii sanadkan waxayna intaasi ku dartay in ay sii wadi doonto oo ay sii kordhin doonto sheekooyinka wanaagsan ee kor u qaadaya maskaxda iyo dhiirigelinta dhalinyarada Soomaaliyeed ee adduunka ku nool si uu aaminaan
una jeclaadaan wadankayga waxaa ku dhex nool Soomaaliya markasta waxaan jeclahay inaan barto dalkayga dadkayga afkayga iyo diinteeda ayay tiri mar ay hadlaysay hadallada dadka aad ka u soo jiitay intii ay nooleed oo ay tiri waxa ka mid ahaa bugaagtan jeclahay inaan akhristo inta badan waxaan dhageystaa podcast badan interest waxaan ku ahay noloshayda sidaan u horumariyo waxaan ka wadaa maaha lacag iyo waxaas waxaan ka wadaa xaqa diinta the other side because meeshan waa laga tegayaa wax badan baan jeclahay berigii hore inaan wareysi dad badan ka qaado markaa diinta iyo wax badan fahamtid noloshaada dhan baa isbedelaya so hadda dreamkayga wuxuu yahay maahaba inaan caan noqdo oo lacag sameeyo waxaa rabaa maxaa ka tegaysaa markaa dhimatid maxaa dadka ku xusuusanayaan insha Allah hadday dadka ugu xusuustaan waxaan ahaa qof dadka Soomaaliyeed iska jecel inay walaalo noqdaan inay noqdaan dad maanta fahmi kara wadankeeni haddii anaga waxba ka tarin yaa waxna taraya hadda laba wiil baan korinayaa af Soomaali kuma hadlaan anigiiba haddii mar dhaweyd baan af Soomaali si fiican sii baranayaa haddaba maxaa soo socda next generation ka kale maxay dadkeeni ku dambeyn doonaan intaasaan isweydiiyaa so insha Allah YouTube-ka marka Google la geliyo Soomaaliya Somali people haddii wax wanaag soo baxaan inta igu xusuusta intaas oranaya jacayl ay u qabto dalka iyo dadkaba ayaa u suurageliyay inay si rasmi ah hodan ugu soo guurto Soomaaliya gaar ahaan magaalada Kismaayo halkaas oo ay ku guursatay marxuum Fariid oo kamid ahaa mas'uuliyiintii hore ee maamulka Jubbaland kaasoo isku meel ku ruux baxeen geerideeda waxay taabatay bulshooyin badan oo adduunka ku nool kuwaasoo isugu jira Soomaali iyo ajaanib ka qaracmay kana walwalay kuwaasoo isla qiray inay ahayd xidig u soo baxday bulshada Soomaaliyeed laguna xasuusan doono daljaceelkeedii wadaniyada lahaa ee ay u adeegsatay inay ku soo bandhigto warbaahinta caalamka Allah u naxariistay hodan naaleeye waxay 12 bishan ku geeriyootay hotel Cascasey iyada iyo seegeeda iyo dad kale Soomaaliyeed oo badan kadib markii weerar lagu qaaday hotelkaasi ku yaala magaalada Kismaayo